السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلامية أنتو كواذا أفك الصومالية ملك استوها جوغاني إسلام وقلنا ولا لي مالمهن وحصوبة أرنتا مرنك أودا حيا دلك كينيا دلك الصومالية وأرنتا سوكو صبصن بدا الصومالية كينيا أيو حنقولين سائنا لورك بدا الصومالية أو أحدول أهاندن صدن سديد كون أو كيلومتر أو سكوير أو بدا الصومالية أيضا بدا سيكو قدنا يستشدال كينيا إسلام وقلنا وحبدنا يندرسيهن مين نسو هنقولين جيلن بدينا waxaa ku dhaliya hadda oo ah in badayna ayaa la ogaaday in shidaal badan oo ceegaaga oo buuxo dhulka si intaas ka dib Kenya waxay geed gaanbo fooshay in badala wareegto xilliga laga soo bilaabo dawladda ku meel gaarka oo dhan waxyaabo badan oo lacag badan ay ku bixisay awokaatyaal badan oo dhanka badda qabiilku ay u isticmaashay hay'ado badan oo shidaalka qoday ay u isticmaashay si badayna u la wareegto laakiin waxaan u mahad celinayaa xildhibaanadii xilligii ku meel gaarka arintaas diiday laakiin Kenya maysan daalino hadda way soo cusboonaysiisay si badayna mar labaad u la wareegto maxaa inaga saaran anaga wax dhalinyarada Soomaaliyeed arintaani maxaa inaga saaran in waajibaadka aan gudano nin walba Soomaaliya oo dhalinyarada wadanka waajib ayuu ku leeyahay adna xaquuq ayaa ku leeyahay maanta xaquuqdeena ma heli karno oo dawlad cadaalad ah oo dawlad xoogan ma jirto laakiin waajibaadkana saaran waa ka bixi karnaa anaga xaquuqdeena heli karno waajibaadkana saaran waxay tahay in arintaani aan cod dheer ku muujino in Kenya aysan la wareegi karin badeena in nin walba oo Soomaali ah arintaan oo xid iska saaro aan mudaharaadyo sameeyno Soomaaliya garan aan hay'adda heeg dacwada la geeyay dadka Netherlands jooga Soomaalida xataa oo heeg degan magaalada heeg degan inay banaan baxyo sameeyaan ay ku banaan baxaan maxkamadda horteeda in macquul ahayn Kenya ayaa waxay ku murmaysaa xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya in leenka dheer ee badda kala qaybiyo labada wadan kala qaybiyo in leenka ay kor u qaado sida hadda wada jeegnabo dhul la eg inta 38 kilomitir ay la wareegaysaa xuduudda labada wadan waa taasa Soomaalida aragtaan leenku waa inuu saas u socdaa Soomaalida kale Kenya wuxuu ku murmaysaa leenka inuu kor aado dhanka bari aado ayay ku murmaysaa taas oo xalaalaynaso 38 kilomitir oo badda Soomaaliya ah oo square ay u xalaalaynasaa taas oo ay ka yeelayso 5 ceel oo shidaal taas oo ka dhigaysa Kenya wadan aad taajir ugu ah shidaalka halka Soomaaliyana dadkii biilaan ay u dhimanayaan cilal la'aan dadkii caafimaad la'aan wadooyin la'aan iskuul la'aan ay dadkii u babaasan yihiin Soomaal Kenya ugu faa'iideeyo madaxweynaha Kenya ugu faa'iideeyo dadkiisa Kenyaanka taasi mid suurta gali karta ma ahan waad ogtiin wadanka waxa badbaadis 16 dhalinyaro ah aniga waxaan mar walba aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed maalin maalmaha kamid ay kici doonaan laakiin waan ku rajaynayaa ku riyooda maalin maalmaha kamid ay dhici doonto waan sugayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka taga qabiilka habiyo wax wada idin mataro daarood wax idin mataro isaaq wax idin mataro dir wax idin matarto wacid wax idin tarmaan wax idin taro magaca Soomaaliyeed war caafimaad meesatan wax barasho meesatan waxu meesatan muxuu qabil idintan muxuu qabil idin qabtay 20 sano ayaa wadanka ayuu burbursanaa qabla ayaa u dagaalamay maxay idin qabtay in soo kordhiyeen bal xisaabtama oo wax isku dhufta marka waxa u baaqaya dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed arintan xoog iska saaran nin walba video-gan arkan waxaan leeyahay walaalo sheegaray haddaad awoodid inaad video samee haddaad awoodid badan inaad isku aruurin kartid isku aruuriyo arintan arin muhiim ah laga dhigo hal lagu banaan baxo وأنا سلامتين وأدمات سنتين